السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي داود الكسر أول برنامج كيني تاريخ الدنك قيبتي سيكوبات حتى يدي يقول غلطتي كود عليها قوانة الإسلام كيدين عمادقة هل كان وحان كسو بندقينا تاريخ علماء الإسلام كهيدي قوانتو ذا اللحظي إسلام كان لو تري أقويها نور هرقلبيدا كواسو تاريخ هانا كدن بي علماء الإسلام كتبنان سنة يبغلال سنة دعداد كوبات ابن النفيس وحوها مد كميدا أقويها نادي إسلام كيدين عافيمات kaasoo daaha ka qaaday habdhiska dhiig wareegga oksijiinta wata midaasi oo si heeldheer uu ugu sharaxay buuggiisa la yidhaahdo faahfaahinta nidaamka qalliinka cidna daah kama saarna xatooyadii foosha xumeyd ee loo geystay aqoontii aqoon-yahan ibnu nafiis ee habdhiska wareegga dhiigga oksijiinta wata taasoo loo tiiriyey dhakhtar reer ingiriis ah oo la odhan jiray william harvey waxaana muddo qarniya ah la aaminsanaa inuu isagu daaha ka qaaday midaas ilaa iyo arrinta bannaanka soo dhigay dhakhtarkii masaariga ahaa ee dr muxiyadiin aldandaawi kadib markii uu maktabad magaalada baarliin ku taala ka helay kutub hore oo lahaa aqoon-yahan ibnu nafiis kuwaasi oo si faahfaahsan ugaga hadlay arrinta habdhiska dhiig wareegga oksijiinta wata intaa kadibna waxa uu ka diyaariyey PhD taariikhdu markay ahayd 1924kii dr muxiyadiin aldandaawi waxa uu diray aqoon-yahanada Jarmalka PhD uu ka diyaariyey kutubtii hore ee ibnu nafiis kadib markii ay wax badan la fagureen waxay arkeen inay isku mid yihiin dahka qaadka William Harvey iyo waxa ku qoran kutubtii hore ee ibnu nafiis laakiin midda cadaaladda siisay ibnu nafiis waxay ahayd inuu 3 qarni ka horeeyay William Harvey taasoo ay markii dambe aqoonsadeen inuu ibnu nafiis yahay ninkii ugu horeeyay arrinta daha ka qaaday sidaana xaq lagu siiyay isaga dhacdada labaad xatooyadii loo geystay caalamka islaamka ibnu khaldun taasoo ahayd asaasidii cilmiga bulshada midaasoo loo tiriyey aqoon-yahan yahuudi faransiis ahaa oo la odhan jiray Durkheim dhacdadii saddexaad xatooyadii iyaduna loo geystay labadii aqoon-yahan ee islaamka ahaa ibnu Sina iyo Hibatullahi ibnu Malik midaasoo yana ahayd qawaaninta dhaqdhaqaaq loona tiriyey caalamkii reer Ingiriis ee Sir Isaac Newton midaasina la yaab ma leh waa caado looga bartay reer galbeedka inay sameeyaan qulqulatayn iyo doomartaynta cilmiga iyo aqoonta dhinaca kale haddaynu eegno aqoon-yahanada islaamku waxay ahaayeen kuwo muujiyo oo caddeeya dhigana kasta oo ay ka soo minguuriyaan kutubtii hore ay qoreen aqoon-yahanadii hore ee reer galbeedka sida kutubo ay qoreen aqoon-yahanadii hore ee Greega ee Aristotle, Socrates, Chelanos iyo Abuquraad dhacdada koobaad aqoon-yahanadii walaalaha ahaa ilmo Muuse Shaakir waxay ku xuseen buuggoodii la odhan jiray barashada xisaabaadka bedka iyo goobada inaanay lahayn aragtida aqooneed ee dhexroorka bedka oo ay ka soo minguuriyeen aqoon-yahan reer Greega oo la odhan jiray Archimedes dhacdada labaad caalimkii Abubakar Razi waxa uu ku sheegay kitaabkiisa Al-Hawi inuu ku soo ururiyey culuntii aqoon-yahanadii hore ee Greega ahaa sida aqoon-yahankii Greega ah la odhan jiray Aristotle, Socrates, Chelanos iyo iyaguna kuwii markii dambe cusboonaysiiyey sida Al-Hunayni ibn Isxaaq, Yaxya ibn Sawih iyo Booliis oo isaguna ahaa aqoon-yahan reer galbeed ah